hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA ayaa sheegtay in gacanta lagu dhigay horjoogo ka tirsan xarakada Al-Shabaab oo ka qayb qaatay qaraxyo maalmo ka hor ka dhacay magaalada caasimadda ee Muqdisho. Qaraxyada lagu eedeeyay horjoogahan ay gacanta ku soo dhigeen hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa la sheegay inay ka dhaceen degmada Hodan ee gobolka Banaadir, waxaana ka mid ahaa qaraxii dhowaan lagu dilay xogayihii hore ee maamulka gobolka Banaadir Maxamed Amiin. qoraal ka soo baxay hay-adda NISA ayaa lagu sheegay in howlgal laga sameeyey degmada Yaaqshiid lagu soo qabtay ninkan ka tirsan xarakada Al-Shabaab ka oo ka qayb qaatay qaraxii lagu dilay agaasime Maxamed Amiin. Horjoogahan gurigiisa waxaanu ka soo qabanay aaladaha loo adeegsado qaraxyada, ayaa lagu yiri qoraal kooban oo ay NISA ku soo dhigtay boggeeda Twitter-ka. hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka si rasmi ah weli uma soo bandhigin shakhsigan ay sheegayaan inuu ka tirsan yahay xarakada Al-Shabaab, waxyaabaha ay ku soo qabteen iyo sawiradiisa intaba.